markii uu taliyaha bilayska qori ula soo baxay si uu u dilo Rishi, Yashoda ayaa isla markiiba iyaduna qori la soo baxday oo ay ku qabatay Gautam, taas oo bedeshay xaaladii hore. Madhu iyo taliyaha ayaa argagaxay markii ay arkeen in nolosha Gautam ay halis ku jirto, sidaas darteed taliyaha ayaa qorigii hoos u dhigay. Gautam wuxuu isagoo jeesjeesaya yidhi, qoriga waad haysataa, laakiin ma taqaanaa sida loo rido. hase yeeshee Yashoda ayaa markaas si xirfadaysan u sharaxday nooca qoriga iyo sida loo isticmaalo. Arrintu waxay la yaab ku noqotay dhammaantood, waxaana la ogaaday in Yashoda aysan ahayn gabar caadi ah, balse ay tahay sarkaalad booliis oo tababaran. Dib u milicsi ayaa muujinaya in Yashoda ay ahayd ardayad aad u caqli badan. balse markii ay shaqo codsanaysay, sarkaal sare ayaa ka dalbaday anshax xumo ama laaluush, taas oo ay si adag u diiday. guriga ayay ku laabatay iyadoo niyad jabsan, waxaana ay heshay boorso lacag ah iyo warqad ay uga tagtay walaasheed. maalintaas wixii ka dambeeyey walaasheed raq iyo ruux waa la waayey. Yashoda waxay ogaatay in walaasheed ay lacag darteed u gashay hawshan surugay. sidaas darteed Yashoda waxay go'aansatay inay iska dhigto qof uur leh si ay xaruntan u soo gasho oo ay walaasheed u raadiso. waxay hadda u sheegtay Rishi iyo kooxdiisa in ujeedkeeda ugu weyn uu yahay inay hesho walaasheed. markii ay sawirka tustay, waxay xaqiiqsadeen in gabadhaas ay ahayd mid ka mid ah dhibanayaasha xarunta. hadda Yashoda way hubtaa in walaasheed lagu dilay isla goobtan. dagaalka hadda wuxuu u dhexeeyaa Yashoda oo raadinaysa argudasho iyo kooxdan dhiig miiradka ah. fadlan ciwaanka falo dheh muuqaalka meedheer gaarsiiya.